الله إلهي رفعت كراحة كذا بصغراء لويري حبسي حلبو كهلي والوكي والبهاركي والزير بكون نقضي الشيخ مختار ربو أو منصور أياماته حكم النقضي قالها وزير هذا حكومة رئيس الوزراء حمزة عبد الرحيم حل وزير أيام الله مقعامي سيديبا يكون علي إن قالها وزير هذا والشيخ مختار ربو أو منصور كم النقضي يا وتي قرشها أحكي والشيخ مختار كم النقضي قالها وزير هذا رئيس انتل لأبو عبد العزيز لفت جرين وصاريش مختار ربو سيقولن قالها وزير هذا وقام النقضي قدوميها قالها الشعب الشيخ آدم مدوب محوكيري مركي الله بني قالها وزير هذا يكمل نقول يا شيخ مختار ربو أو منصور انتي إلا إقبال شعب غير كفر قلبين أو فرحين وكمل نقول قالها وزير هذا الشيخ مختار ربو أو منصور دقلي يبلف لعيدا ماضي أي كلها حير معمر كفر قلبين وعبد العزيز لفت جرين مدبر وكل أديجري مركي قالها وزير هذا وكمل نقول الشيخ مختار ربو قان عين كه أبي قاعتين وأسيدي حالة دم مجالة بينهم جوي جد بالدقة سولوين تشيخ مختار ربو قديه معمر كفر قلبين قرب الجوب تغير كفر قلبين وكسر جيد الدقلي يبلف لسيدا يوار كيان شعب ككلاء كقرع عسر محبوس كي بعترف فرح بدل وعي إنه ما أنت قالها وزير هذا كسر موضوع واحد بدل بقى عن إنه مدة صومالية ضرائب تيمية ما أنت عن إذا كلابل عدو كواد الدقلي يبلفله هي صاحب كواد أما ورالك كواد الدقلي يبلفله ما أنت عن إذا برو عدو الشيخ مختار ربو أو منصور هي صاحب كشيخ مختار ربو أو منصور شعب الصوماليات يولي بمجاعبستا الشيخ مختار ربو وصلح لحد يوم واحد لي أيام سلوك كلا يفتيمي دون الأمان تنسون هذا موقع كبر كويدسون قالوا سيشر جري يحدو الله مو الشيخ مختار ربو أو منصور رفض كي راحة وقدم بيسي حبسينا حلبو كهري حبسي حلبو كهري والولكي والبهاركي والزير أيكون مخلي تاسو waxay ku tusinaysaa qofkii samra inuu sadkiisa helayo qofka samra oo dulqaata oo la yimaada iimaan inuu maalin maalmaha kamida guushii noloshiisa u gaarayo ninkani farxumo ayuu kala kulmay dowladii maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu kula kacay sifo aan waafaqsanayn nidaam dastuuri ah ama nidaam dowladeed wuxuu ku weeraray baydhabo Ethiopian ayuu adeegsaday gacanta ayuu ku soo dhigay حبسي أيو أحدقي وليبا محكمة لبسعر تاسو كنت سنعيسا إن شيخ مختار ربو حاقف أفضوبا أو أن حبيراتي حرية هيسن مددي وحبسي يكوجل حتى وحلقوه رستاقين إهلدو سنة بوغدان تاسو كنت سنعيسا حتى موادنك الصوماليات إنه يكون تهي أرين ليدكو هايري أدوغ الصومالية أيو كنت المامنان يقفكي موادن محكمة جيو أيو oo waliba u diiday in ehelkiisu ay soo boqdaan anigu ma dhihi karo muxtaar roobo dawladda Soomaaliyeed u xirnaa ee waxaan dhihi karaa cadawga Soomaaliyeed u xirnaa sababtoo ah muwaadin loo ma diido in uu 48 saac gudahood maxkamad uu istaagi waayo inta u diido waa cadawga Soomaaliya 48 saac istaagay 3 sano iyo dhowr bilood loo diiday in maxkamad la horkeeno dadkii uu ka dhashay laga hor istaagay marka anigu muxtaar roobo dawladda Soomaaliyeed ma xirnaa wuxuu u xirnaa cadawga Soomaaliya haddaba sideeba wasiirku noqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa qofka ku dhagay oo waliba waday arinta ah inuu wasiirada ka mid noqdo sheekh muxtaar roobo sabab kale ah intii uu loolanka siyaasadeed iyo tartanka madaxweynenimo uu ku jiray madaxweynaha jamhuuriyadda waraysi laga qaaday ayaa jira waraysigaas uu ku sheegay in sheekh muxtaar roobo uu u xiran yahay afduub oo aan la oran karin inay tahay mid waafaqsan sharciga maalinta uu xasan sheekh hadalkaasi dhahayay bal aan marka hore dhageysano si aad u ogaatid hadalka aan sheegayo inuu xasan sheekh maxamuud sababteedu leeyahay bal ila dhageysta xasan sheekh oo xabsiga sheekh muxtaar ka hadlaya waqtiga uu farmaajo u joogay xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri muxtaar roobo sida loo handal garay sax ma aha legally sax ma aha arinta shabaab muxuu ahay dadka incentive in la siiyo shabaab inay ka yimaadaan muxuu ahay sax u maaha muxtaar roobo aniga hadda koorna waan ka hadlay haddana still waan ku celinayaa he is kidnapped muxtaar roobo waa la afduubtay someone oo kidnapped ah ayaan dhihi karaa for political reason not for security not for al-shabaab maalintaas oo ballan qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii uu kursiga tago in sheekh muxtaar roobo uunan xabsi ku sii jiray maxaa yeelay tilmaamaha uu madaxweynuhu bixiyey waagaasi musharax madaxweynuhu ahaa waxay ahayd arrin afduuba waa sax muxtaar roobo dowladda farmaajo waxay noo sheegtay inuu ka soo laabtay nidaamkii argagixisada in la cafiyey dowladdii farmaajo ayaa shaacisay shir jaraa'iduu muqdisho ku qabtay weliba waan idin xusuusinayaa 14 Oktoobar 2017 qaraxii ka dhici jiray Soobe dadka dhiigga ugu deeqay dadkii ku dhibaatoobay ayuu muxtaar roobo ka mid ahaa maalintaas dowladdu waxay tiri waa ka safar dibadda loo diray
safarkii dibaddu ka soo laabtay markuu baydhabo tagayo olo doorasho u galay markaasaa la yidhi maya hadduu tartamo koonfur galbeed gacantayna way ka baxaysaa kadibna etoobiya baa loo adeegsaday gacantaa lagu soo dhigay dowladda soomaaliyeed sidee u dhaqantaa qofka dembilo wuu noqon karaa dembi waa loo qabsan karaa laakiin 48 saac qof xabsi lagu hayo oo maxkamad loo diido macnaheedu wuxuu noqonayaa nidaam dowladeed maaha waa nidaamka cadowga soomaaliya farmaajo wuxuu ahaa cadowga deegaankaas cadowgii soomaaliya cadow dhibaateeyey nafta mukhtaar roobowna xag allay ka nooshahay mooyaane marnaba uguma talagelin maxamed farmaajo inuu si nolola ninkan ku sii daayay mukhtaar robow saasaa lagu soo qabtay 3 sano iyo dhowr bilood wuxuu u xirnaa sifo aan sharciga dhan waafaqsanayn oo afduub ah afduubkii waa laga soo saaray ballamada madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qaaday bay ka mid ahayd ninkii xasan ahaa marka waa uu ku dhagay wuxuu yiri golaha wasiirada ilaa inuu ka mid noqdaa waxaa ku raacay oo aan rabaa shacabka koonfur galbeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed inaan u sheego sheekh mukhtaarna inuu wasiir noqdo ku raacay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheekh aadan madoobe waa uu soo dhaweeyey go-aanka madaxweynaha ra-iisul wasaare xamse cabdi barrena waa soo dhaweeyey marka reer koonfur galbeed buu sheekh aadan madoobe kasoo jeeda horta ogaada shacabow reer koonfur galbeedu mudnaanta koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda iskale mudnaanta labaadna sheekh aadan madoobe dhinaca koonfur galbeedna mudnaanta koowaad ayuu sheekh mukhtaar ku helayaa على كل حال أرنتاس ويسو أتمنى دير نكي لفت جرين حابا مقلين وضعونا لفت جرين سبعين مجرد جد كستو أمرين إنو قلها وسيرة كورستانونيك ولي بوحو جاري هير وقايل أن صدق تيم كي على الكودي دعي فرماجو وقاملي لكن محا كبارا وفرماجو مانتو وكسو كرنيك لفت جرين واي أتكاتين قلها وسيرة دور مربع كلوبا لغا قبتي ولي بكوشيان حتى الله مقعابين wuxuu qayb ka ahaa kuraastii shalay ay u baaqatay golaha wasiirada in lagu dhawaaqo maxay mukhtaar robow kursigiisa iyo kursiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa horan ka taagnaa labadii kursi bay qayb ka ahayd maantana qalinka lagu duugay saacadii hore maanta inta aan golaha wasiirada lagu dhawaaqin waxaa kula wada qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka saddexdooduna arrinta ay la fogurayeen sheekh mukhtaar bay ahayd sheekh mukhtaar wuxuu codsaday in inta aanan golaha wasiirada lagu darin la siiyo warqadda dowladdu ay ku cadaynayso inuusan wax dembi ahayn si aanan berrito loogu xadgudbin warqadiina waa loo diyaariyey kadibna golaha wasiiradu ka mid noqday wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta la dagaalanka argagixisada ayaa loo magacaabay ujeeddada marka uu xasan sheekh u magacaabay oo keenay in golaha wasiirada loogu soo daro wax kala maaha soomaaliya dhib waxaa ku haya argagixiso dalkii soomaaliya dalalka soomaaliya dariska la ah waxaa nagu daraya waa shabaab oo mukhtaar robow loo helina lama jebin karo runtaan idin sheegaya shabaab mukhtaar robow ayaa jebin kara mukhtaar robow oo mansuur sababta loo keenay waa in la dagaalanka laga dhabeeya shabaab laga saara dhulka soomaaliya waana ujeedada mukhtaar robow loogu soo daray golaha wasiirada wixii wacyigelinana isagay khusaysaa wixii taabagelin iyo dagaalkan al-shabaab lagu qaadi doonana qaybtiisu ka qaadan doonaa maxaa yeelay dhalinyaro badan oo qalbiga ka xadaan oo ay u sheegaan haddii aad isqarxiso jannaad gelaysaa iyo qofkaas hadaa soo disho aakhiro jannaad gelaysaa iyo kelmadihii saas ahaa oo aan diiniyan xataa aanan ahayn wax saxa dadka soomaaliyeed oo 100% islaama dhiigoodu janna lagu gelaya qofka ku yiraahdo dee waa qof beenlow ah waana muuqataa in aan qof muslim ah oo shahaadanaya oo masjid jooga ama gurigiisa jooga ama wada maraya inaad isku qarxiso janna aadan arkayn dee qof kastoo iimaan la waa ogyahay marka mukhtaar robow kooxdan ninka keliya jibi kara weeyaan muddo 5 sano haddaan idin xusuusiyo keligii ayuu la dagaalamayay 5 sano ayuu keligii la dagaalamayay maanta isagoo haysta dowlad iyo ciidan military oo qayb walba ah haddii ay isqabtaan isaga iyo shabaab wacdana halkaa ka dhacaysa marka waxaan leeyahay hambalyo taageerayaasha sheekh mukhtaar robow mansuur waan idin hambalyeynaya waad guulaysateen damaashaadka sheekh mukhtaar lagu taageerayo dal iyo dibad bay ka socotaa magaalada baydhabo ayaa ka mid ah magaalooyinka ninkii lafta garan ahaa wax indhihiisu wax ku arkay ciidankii maamulka koonfur galbeed gaar ahaan soo majeystayaashii digli iyo malifle waxay qaateen qoragoodii nin walbana wuxuu leeyahay lafta gareenow mukhtaar robow dhiiggeena weeyaan waana xaqiiqa dhab ah maamulka koonfur galbeed dhiig buu u yahay digli malifle hogaamiye u yahay waa madaxweynahoodii dhabta ahaa maantana golaha wasiiradu ka mid noqday marka waxaan leeyahay qolooyin cuqdadaysan oo reer koonfur galbeed oo digli malifle ah mid waalan oo madaxa ka xiiran oo aan baraha bulshada ku arkayo uu ka mid yahayo waxaan leeyahay cuqdada horta allah idinka saaro farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud maanta waa kala aragteen ninka ku gala iyo ninka gacanta ku siiya labay kala yihiin hawiye maanta siduu idin jecel yahay digli malifle waad u jeedaan ninka shalay saas idin galana nin soomaaliyeed oo daarooda oo mareexaan ayuu ahaa maanta ninka xabsiga ka soo saaray oo wasiir ka dhigay oo qiimeeyo sharfay oo
كرامي ونسوا ماريو هوية أو هراء مدلود وأبجع ما أنت قف كبيش وقبش الدقري من فلورجات عند عينه يهوية عدو نكوه ما أنت واحد مركات كتيهم عدو كوات الدقري من فل عدة مركات تبوح لأيات كتير وعن رأينا الله قلوين دي قفيفو قبا ومن ملاحة كحيرانيو من صنبور قبائيو أو أنت ما كسر جيدا ما كان صنبور كقبض خانت أقول لي هاي دولة ده وحكي شيء يعني مدحوينها الصومالي حسن شيخ نين قلبه أنا إسكا مسكينه إلهي حالك يسوق بهايو إسكا عافمات كلا بحيه نين إسكا صنبور يسوق إلهي حالك يسوق بهايو يعني ما نقول الله يا أنت عقدة ليسان أنت للدوري عقدة الغبيرو دقلي يملفله ما أنت ويكلا جرانا ينقفك ورالكو يقفك عدم وضح ninka shalay kusoo duulay ee baydhabo dadka ku laayay iyo ninka maanta karaamiyeen isku mid ma aha marka waxaan la yeeshay muqtaado rafaadka raaxa ka dambaysa wad u jeedaan xabsigii xilbaad ku heshay wad u jeedaan walwalkii iyo walbahaarkii wasiir baad ku noqotay bal hambaliyo barnaamijkan sheekh muqtaar kaliya ayaan uga hadlayay golaha wasiiradana waan soo wadaa waana ka hadli doonaa mid ayaan u kala dhigi doonaa hadduu alla idmo khaasatan waxaan iftiimi doonaa wasiiro runtii iyagana u baahan inaan ka faahfaahin ka bixiyo oo aan barnaamij ku soo qaatay iyagana way soo socdaan si gaara barnaamijyadeedu waxaad uga daawan kartaa facebooka pageka cabdilaahi balwan pagekan ayaad kala socon kartaa muuqaalka markuu idin soo gaarana sii sheeganaya intoona barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa balwan oo idinle dunida meel walba oo aad joogtaan nabadgelyo